ay taariikhdu tahay 27 bisha 6 2019 ah maalin khamiisa war-saxaafadeed ujeedo iscasilaad guddiga doorashooyinka ee ku meel gaarka ah ee Puntland Tibek guddiga doorashooyinka ee ku meel gaarka ah ee Tibek wuxuu ku wargelinayaa guud ahaan bulshooyinka reer Puntland iyo gaar ahaan cidii ay wada shaqaynta kala dhaxaysay in ay baneeyeen xilkii iska casileen ay shaqadii ummadda u hayeen guddiga doorashooyinka Puntland kadib markuu arkay in xubno ka tirsan guddiga ay horay shaqada isaga casileen isla markaasna xubno kale dalbadeen in ay iska casilaan shaqada duruufo u gaara awgood ayaa xubnihii kale ee guddigu si wada jira u go'aansaday in ay iska casilaan xilkaas si loo helo guddi cusub oo isla jaan qaada haddaba guddiga doorashooyinka ee meel gaarka ah ee Tibek wuxuu 22 bishii 2019 madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland u gudbiyay warqad iscasilaada taas oo sumadeedu ahayd maxay sumad lambar intaas warqad ku xusan kuna taariikhaysnay 2019 warqadaas oo madaxweynuhu ka aqbalay markuu xeeriyay codsiga guddiga doorashooyinka ku meel gaarka guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland wuxuu u mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka siisay shaqadii guddigu ummadda u hayay oo ay ugu horeeyaan xukuumaddii Saciid Cabdullaahi Deni iyo golaha xukuumadda oo hadda jira iyo sidoo kale hay'adda BDRC Bunsa iyo hay'adaha caalamiga oo ugu horeyso hay'adda Zayfo guddiga doorashooyinka ee Puntland Tibek wuxuu mar kale si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni sida qiimaha leh oo uu uga aqbalay iscasilaadda guddigu ay codsadeen la soo dhisana xukuumadda hadda jirta iskale iyo baarlamaanka waa marka koowaad shaqadaas waxa iskale xukuumadda hadda jirta iyo baarlamaanka laakiin anagu madaxweynaha laftiisa waanu kala hadalnay waxaanu ku niri maadaama anagu meesha aanu banaynay ballanqaadkaagu ku aadanaa arrintaas in la gaarayo si uu u fulo guddigii dhaqso u magacaabo saan meel bannaan u dhicin isaguna wuu ku howleeyahay isagana naga horeeyo wuxuu nagu yiri hadda intuusan fadhiga baarlamaanku dhan xirmin ayaan guddigii soo magacaabaya si uu ansixiyo xasaanada weeraan shaqadooda halkii uga sii wata marka waxaan filayaa inaan dib dhac dhacayn sida madaxweynuhu noo sheegay annaguna aanu filayno shaqadu inay ku soconayso arrinta maadaama rajayteena ka qatalan Puntland ee gaar dhaqanaalka iskeeda saladaas horta rajadu waa rajo ilaahay rajada ilaahay mar walba biidnillaahi kariim waxa la fishaa ama la dhigeystaa inay ku fulayso laakiin waxay ku xiran tahay sida loo shaqeeyo shaqada in la shaqeeyana dhinacyo badan baa iskale dhinaca xukuumadda laga rabaa dhinaca baarlamaanka laga rabaa dhinaca shacabka Puntland baa laga rabaa dhinaca kale waxa laga rabaa guddiga shaqadiisa inuu guto dhinaca kale hay'adaha caalamiga waxa kan gacan ka geeyaan inta hal dhinac ka banaantay shaqadu ma soconayso laakiin intaas hadday isla jaan qaadaan shaqada waxaan anigu aaminsanahay shaqadaas inay soconayso biidnillaahi kariim wayna soconaysaa saan isleeyahay anigu kale gudoomiye garow online ayaa socdaa waxaa jirta dardargelin ay dowladdu dardargelinayso arrimahan dimuqraadiyadda idinkaana waqti ay dowladdu arrintaas dardargelinayso ayaad ku soo beegteen iscasilaadii ma idinka ayaa u arkay in aydan wadi karin shaqadii dardargelintii dimuqraadiyadda dardargelintii mise presidentka dowladda idinkaga yimi oo ah inaad iscasishaan maya xaggaas waxba ha aadin warqadan bay ku xusan tahay waxaana waanu isku casilay waan ku celinayaa war-saxaafadeedka aan akhriyay ka mid bay ahayd rag guddiga ka mid ah ayaa horay isu casilo meesha kala maqanba oo xubnaha ka tirsanaa ayaa baneeyay meesha isla markaa rag kale ayaa duruufo ayaga u gaar ah door biday in ay shaqadii baneeyaan maadaama markaa rag horena isu casilay kuwa kalena ay dalbadeen waxaanu wadatashi kadib waxaanu door bignay inaanu annagoo dhan iswada casilo si loo helo rag cusub oo la jaan qaada xukuumadda cusub shaqadeedina sii gudata marka duruuf aniga ma kaliftay iyo cidna erin kartaa ma jirto baa anagu inta madaxweynuhu ku dhacana marka baarlamaan 4 iyo 40 iyo wax ku dhow codkiis baan ku dhacna marka hiif iyo buuq iyo dagaal iyo midnimo jira anaga ayaa waxaanu door bidnay baanka inaanu qaadano si guud baan u wada qaadanay